madaxweynaha Masar Mudane Cabdulfataax Siisi oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ee wareegtada ah sanadkan ayaa waxa uu labada dalba ka codsaday ka hogaamiye ahaan iyo mas'uuliyadda ka saaran midowga Afrika darteed in uu ka shaqeeyo tallaabooyin looga gudbayo intii midowga labada dal ku kala dhex jiray kaasoo tan iyo bishii Febraayo sanadkan soo taxnaa marka ujeedada shirka taas oo ahaa ugu weyn ilaa 45 daqiiqo ku dhawaaduna qaatay waxyaabihii ka soo baxayna waxa ugu muhiimsanaa labada dal inay xiriirkooda ku celiyaan meeshii uu taagnaa markii uu xumaaday bishii Febraayo iyo in la sameeyo guddiyo isku dhaf ah oo labada dal ka kooban kuwaas oo ka shaqeeya maadaama kalsoonidii ay luntay sidii kalsooni dhis loo samayn lahaa oo kalsoonidii loo soo celin lahaa iyo tan ugu dambaysa oo ah annagu dhankeena inaan marnaba diyaar u ahayn inaan meel ka baxsan maxkamadda cadliga adduunka uga hadalno ama uga sheekaysano kiiska dacwada badda ee na dhex yaalla anaga Kenya. Cabdulfataax Siisi muxuu ku qanciyay madaxweyne Farmaajo si uu kulankan u dhaco? annagu sideedaba horeyna runtii diyaar baan ugu ahayn oo bishii March ee sanadkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay si wada jir ah u tageen Nairobi si loo yareeyo tensionka iyo khilaafaadka labada dal u dhaxeeya mar walbana annagu ma ahayn dal diidan in la wada hadlo laakiin waxa laga wada hadlayo baan su'aal ka qabnay waayo kiiskan ay Kenya ku andacoonayso inuu murankan ka dhashay waa kiis yaalla maxkamad ay Kenyana qayb ka tahay annaguna qayb aan ka nahay aanan ku qanacnay inayna dhexdhexaadin karto meel fiicanna marayo hadda dacwadiisii ugu dambaysay dhageysigeeda la marayo marka annagu wixii intaa ka soo haray Kenya inaan kala hadalna awalba diyaar baan u ahayn waxaa jirta xigmad dhahaysa waa dooran kartaa saaxiibkaaga laakiin ma dooran kartid deriskaaga annaga Kenya waa isku khasbannahay derisaan nahay weligeena inta dunida la joogo derisaan ahaan doonaa marka deris wanaagga inaan ilaashano ganacsigeena isu furno waxyaabahan isriixriixa iyo hadallada la isu disinayo xanafta la joojiyo darisnimadeena iyo wanaageena iyo xiriirkii wanaagsanaa ee labada dawladood ka dhaxeeyana in halkiisa laga sii ambaqaado dibna loo celiyo saacadda oo meeshii uu ka soo bilowday dib loogu celiyo maxaa loola jeedaa in la caadiyeeyo xiriirka labada dal mar haddii safaaradihii ay labada dal ka furan yihiin safaaraduhu way furan yihiin laakiin annaga Kenya meesha aan kala taagnayn tan iyo bishii Febraayo cid ay ka daxsoon tahay ma jirto waana tan kalifiinaan maanta isu nimaadno labada madaxweyne isma arag tan iyo intii u dambeysay bishii March aan ku tagnay Nairobi wax xiriira ma dhaxmarin in la caadiyeeyo oo xiriirkii loo soo celiyo daris wanaagii naga dhaxayna halkiisa lagu celiyo waa wax Kenya ay u baahan tahay annagana aan u baahannahay gobolka oo dhan xasiloonidiisa ay muhiim u tahay ma ku jirtaa arrimaha laga hadlay ee muranka badda ee labada dhinacba annagu dhinaceenna waxaan miiska la tagnay inaan marnaba kiiska halkan lagu furi doonin halkan uu ka furnayn maxkamad iyo fagaaro caalami ah oo cadaaladeed oo adduunyada ku qanacsan tahay inuu yaallo wayna ku qanceen madaxweyne Siisi oo na dhexdhexaadinayay iyo madaxweynaha Kenya dhankiisa ka fadhiyay wada hadallada wasiirka arrimaha dibadda waxay Twitterkeedu ku sheegtay in dalkeedu u rumaysan yahay in kulankan uu yahay tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan oo wada xaajoodna uu yahay jidka ugu fiican ee lagu xalin karo mushkiladaha Afrikaanka sidee marka idinku aad u aragtaan hadalkan oo dulucdiisu ay tahay in aad ka wada hadashaan arrinta badda xitaa haddii ay maxkamad hortaalo fartuunay waxa weeye anigu madaxtooyada Soomaaliya aan u hadlaa ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya uma hadlo hadal maldahan iyo hadal qaloocan cidii tirina ayadaa laga rabaa intaad ku noqotaan in wax faahfaahsan oo cad sida aan annaga mowqifkeena iyo wixii aan meesha la tagnay iyo wixii aan kala soo kulannay iyo wixii aan ku heshiinay aan u cadaynay oo statementigii iyo saxaafadeedka aan ka sii deynay madaxtooyada ugu cadaynay ayaa ayagana dhankooda laga rabaa marka aniga ayagu uma hadlo laakiin positionka dawladda ama mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya halkan iyo wada hadalladii aan halkan ku yeelnay saddex geesoodka ahaa wuu cad yahay waana u qeexnay si aan isleeyahay tarxaan bixin uma baahna